بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب كسو دوالا مقالة تحنها ها وكساب سنة مادة إنجليشكا قارهان جريد كسديدات مقالة وروحة كسو هذا لني وحقبدي كواد إلى أفري تبنات وقال كان وحن كجهد لنا activity 15 وحقبت كشني تبنات وكسب سن writing a letter ورقة قريت كنا قرن page كلحي تبنات أما بوج لحي تبنات write وقر a letter ورقة to your friend صاحبك who lives كاسو كنول in another foreign country waddan kale oo dibadda ah waddanka adiga aad joogto waddan ka baxsan ayaa waxaa loo yaqaanaa foreign country give him isaga waxaa siisaa the information warbixinta required loo baahan yahay during inta lagu guda jiro the month of Ramadan bisha Ramadan information required ka ee loo baahan yahay asaga si marka give him si isaga the information warbixinta required loo baahan yahay during inta lagu guda jiro the month of Ramadan bisha Ramadan write the page of the letter boga warqada u qor like this sidaan oo kale u qor okay marka warqadii marka ayaan gudgalaynaa warqadii marka ayada dhameystiran waa kana oo shaashada sida ka muuqato dhinacaas oo midigta ah waxa ku qoran address waxa la yani qofka goobta uu joogo wadanka uu joogo iyo magaalada uu ku joogo addresska marka qofkan tusaalaha oo soo qaadanay waxa ka dhignay inuu yahay Turki gaar ahaan magaaladiisa Ankara dhinacan kale bixi marka uu soo noqoto marka waxaa ku qoran dear mother or sir yani dear kalimada dear waxaa loo isticmaalaa qof yani agtaada cizi sharaf kale marka dear mother hooyo qaali ah ay noqonaysaa ama dear sir mudane qaali hadda marka waxa ka dhiganaynaa dear sir mudane qaali ah dagana barqad tusaale soo qaadanay dagana barqad kadibna waxa ku xijinaysaa the information laakiin information inta qorin ka hor dhinacaas midigta marka u laabatid waxa ku qoran date oo ah taariikhda marka la diray warqada ayaa loo qoraa dhanka kale midigta marka warqadan tusaale ahaan anaga muuqaalka waxaan diyaarinaynaa oo idin soo gaaraya ama diyaarintiisa ay tahay 15 September 2021 oo ku beegan maanta tan hadda la hadlayno the information qoraysa marka warbixintii loo baahnaa xilliga Ramadaanka loo baahnaa as you know sida ogtahay we are in the holy month of Ramadan waxaan ku jirnaa bisha barakeysan ee Ramadan and you know waad ogtahay that everything in wax walba is doubled ay laba laabmaan during it inta Ramadaanka lagu guda jiro marka Ramadaanka inta lagu guda jiro everything is doubled shay walba laba laabmaa yani qiimaha laga hadlaa during it inta lagu guda jiro Ramadaanka also xitaa there are waxa jiraan worships cibaadooyin ay sameeyaan by the muslimiinta during inta lagu guda jiro the night habeenkii inta lagu guda jiro at the end of Ramadan waxayna sameeyaan cibaadooyinka dhamaadka Ramadan cibaadooyinka mar walba la sameeyaa laakiin xoogooda laga hadlaa waxa la sameeyaa at the end of Ramadan dhamaadka Ramadan and there will be waxaana jiri doonto celebration waxaa jiri doonto celebration dabaaldeg on fast of Shawwal waxa uu jiri doonaa fast
on first of Shawwal kowda Shawwal saas darteed we need waxaa u baahannahay clothes dhar u baahannahay. I request you waxaan kaa codsanayaa to send us inaad noo soo dirto $10 inaad noo soo dirto. intaas waxay u tahay intaa tiro yani tirada dollarka markaas qofkaas ay ku xeelan tahay. marka I request you waxaan kaa codsanayaa to send us inaad noo soo dirto $10 yani inta waxay u tahay intaa number ama tiro dollar ah to fill si aan ugu buuxino ama ugu daboolno our needs baahiyaheena. to fill si aan ugu buuxino our needs ama ugu daboolno our needs baahiyaheena. intaas markaad samayso waxaa ugu dambeyn ku xujinaysaa your sincerely qofka daacadda ku ah ama daacadaada name marka magaca kadib ku xujinaysaa oo noqonaya qofka warqadda diraayo. hadda waxaa soo qaadan qofka warqadda diraayo in ay tahay Xaawo Abdi. marka your sincerely waxaa la qofka daacadda ku ah name magaciisuna yahay magaca markaas ku xujinaysaa. hadda kan waa tusaale halkaas ayuu ku soo dhamaaday marka activity 15 oo ku saabsanaa writing a letter warqad qorid kuna qornaa page-ka 15aad. micnaheedu waxay tahay marka in unitka koowaad grade-ka 8aad ee Ingiriiska uu halkaas ku soo dhamaaday. waxaana suurtageliyay inuu soo dhamaado mahadna ay ugu noqonaysaa Allah subhanahu wa ta'ala oo fududeeyay ilana garab galay inaan soo daabaco muuqaalna ka soo sameeyo asaga ayaa mahadis iska leh. marka waxaa kaloo rajaynayaa in cutubkan inta qof ay fiirsatay ama daawatay ama daawadayaasheena in ay ka faa'iideysteen oo uu wax badan ka anfacay. marka haddii marka ay tahay daawade marka kuugu horeysay aad soo booqatay janaalka waxaa kaa dalbanaynaa inaad nagu soo biirto oo aad taxanaha ka faa'iideysato. haddii hore aad nagu soo biirtayna ay subscribe ku tahay in aad muuqaalka la garayso share na garayso. waa mahadsan tahay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.